iminka haatan daawadayaal ku soo dhawaada warkii oo dhan. xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa kulan ay ku yeesheen maanta magaalada Muqdisho waxa ay ka dhageysteen guddiga dib u eegista dastuurka guud ahaan dastuurka kaas oo la doonayo muddooyinkan dambaba in ama wax laga dhimo ama wax lagu kordhiyo. wariyahayaga Cabdicasiis Cali Guulad ayaa kulanka ka qayb galay waxa uu nooga diyaariyay warbixintan. kulanka maanta baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta si aad uga dooday dib u eegista arrimaha dastuurka dalka Soomaaliya. xubnaha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka dhageystay guddiga dib u eegista dastuurka dalka Soomaaliya iyagoona ay maanta xubnaha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ay akhristeen nuqul ka mid ah qoraalka dastuurka dalka ay soo gudbiyeen guddiga dib u eegista dastuurka dalka. waxaana ay maanta xubnaha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ay ka doodeen dib u eegista dastuurka dalka iyagoona halkaasi ku soo bandhigay fikrado kala duwan. marka marlabaad maslaxad guddiga waa madaxweynaya wadanayaal waxyaabaha ugu muhiimsan oo baarlamaanka u yeelo waxa weeye inaan dastuur dhammaystiran annagoo la tashanaan cid kasta iyo meel kasta Soomaaliya joogaan inaan u gudbino shacab weynaha si afdal weyn loo guddiga waa mahadsan yihiin inta dastuurka inay yihiin kuwa sii jiraya u dhaqankooda. hase ahaatee waa in loo macneeyaa in uu raaco dastuurka inta wax laga bedelayo ama si rasmi ah loo baabi'inayo. ciladihiisa 139 qodobkani wuxuu u qoran yahay si adag oo aan tarankiisu cadeen. shuruucda lagu dhaqmo oo aan urursanayn keedkoodan la haynin qaarkood ay dib u eegis u baahan yihiin. waxaa lagama maarmaan ah in habraac dib u eegis rasmi ah la sameeyo shuruucdii horey u jirtayna la qiimeeyo si loo waafajiyo dastuurka kama dambaysta. xubnaha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay xarunta golaha shacabka ayaa badankood waxa ay ka doodeen qaabka ay uga muuqato dastuurka dalka Soomaaliya inuu noqon karo iyagoona qaarkood soo jeediyay in wax badan laga bedelo kuwa ay ku tilmaameen inay ku jiraan dastuurka dalka kuwa oo qaldan sida halku dhigeen. waxay dhanka kala sheegeen in loo baahan yahay in guddiga loo xil saaray dib u eegista dastuurka dalka Soomaaliya nuqulka ay ka soo diyaariyeen loo baahan yahay in wax badan laga bedelo. kulanka maanta ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ay ku yeesheen xarunta golaha baarlamaanka ayaa waxa ay kaga doodeen sidii laga yeeli lahaa dastuurka dalka iyo waliba sidii wax loo dhimi lahaa ama wax loo kordhin lahaa dastuurka dalka oo muddooyinkii dambe ay ku howlanaayeen guddiga loo xil saaray dib u eegista dastuurka dalka. Cabdicasiis Cali Guuled, Kalsan TV, Muqdisho.